دو جرو عايزتي بشارو مشى في سبب خصوص دراسة وجينا كله أقول أنا نعرف بات هاي ولا عرض وعرب مسيرنا كنت بقول مسير في ساعة قاعد في ساعة ولا قصة سوا بلن لكن أدو سؤال كده بقى عشرة هي قصة دي الديارة طبعا سؤال شيء سؤال من رأي صفر هذا اللي راح تقول ناي سكرية بدنا شيء ما نسا إنه هرجيسة جمهورية دي بركيسني ده كأنه إنه قبلنا هرك عشان تكونوا ونسيت تجينا ديار بلد المجال هرجيسة لا دور دي المجال حاجة هذا ده اللي ما يبغى بسيطة وحوي ده كحد كجوان هاي ملا أفضل من جوان ما هي الصومعة هي كوية والله ما تسيبه يصير لي بشيء جوان أوي وحنا منين اللي ما إلهي بيقول ورنا على سيدنا في الواحد السلامي مقاحدة مددر بان هلك كلجي سوف ديي وهو وإجد داشين وأنا إجد داشين ما أنت وحنا إذين ولا مرتي علوس وبرنامج عصب أو عن حد دافري أو اللي يراهدو عن إصناعي قفكي ووري برنامج ككم مرتي وبشارة باندي أو خد كسيتوسا وجد جرت مقالة لندن عاصمة دولة إنجليزكا بشارة سودو هاي فرحة ويدي هاي شرف ويدي برنامج شعب السوق وحن كوري لأن كل شيء نقول يا حافظ قاعد يشوفني كل شيء نقول يا بشرف والله بالله اللي بقول وياي وصيد ده فرحة لي شرف لي وأنا فرح وأنا حيوان حيوان كابنها ده وأنا أدي أنا حاجة بالبيان وبشارة هذا waxaan islahaa cabaar ku qaadanaysa inaan maqaaxida u sharaxdo heerarka soo martay meesha maxaan ku raadayay ka soo xabadadatay maqaaxida ma ku xirnado xogteeda waa haysaa inaan kugu laabto uma baahnid miyaa miyaad waarantay maqaaxida waxaan ku xiranahay oon iba dhaafino sakinkay sidaa ku soo dhacdo baan ku dhirirta ugu horeysa notification-ka taabtaabta waa aniga ما شاء الله حرام بانا هاي وحال يا روح تصور لك قفكه ugu horeeya taawadan wala ilaahay ana kiima ka rabashan iska qoslaan moogtay xataa hadan calayska wala shay adigu de waa iga soo horeysay caanimo waa iga soo horeysay warbaahin waa iga horeysay barabulsho waa iga horeysay mushaaray aniga goortaan adiga barnaamijyada la bartay oo maxaan ku raadayay role model ii noqotay ma ku sheegaa waxay ahayd maya waxay ahayd waqti aan aad u yaraabay ahayd hooyo ay xambaari jirtay waa xasuustaa universal baa xilligaas adiga iyo allaha u naxariistee cawke baa maaragtay barnaamij soo wada deyn jiray ma fogeyn 2000 anaa nin yar u dhashay xilligaa ma fogeyn 2010 camal ahayd waxaana filayaa markaan ku cudur daaro inuu maaragtay horey qof ka hanqaaday ahayd waxa weeye bishaaro waxa igu maqaala ah in xanuunkii coronavirus ama xanuun yaan oray caabuqi yaan sasine oo ku asiibay baa igu maqaala xaalada wasti walaw fi ana alhamdulillah horta waxa jira dukkan uu iska jiraa inuu gafayana malaha haddana adiga ku dhigin qofka taqaan ku dhacaya way waxa ka aragtay in number isku kor u socdaan wada ka shirka iyo wada kale kan xiriir tiglan baa halkan sidii xashimid malabti ugu dul wareegaysa ha oo England Ingiriiska inay timi waa ogaayay maaday dulsaar ugu tahay halkan ay jooga maxaa dulsaar ma gabadha inay turjintay magaalada ay kala wadaa maana cid kale oo waxaan gacanta ay qabata ba haystaa England waxaan islahaa waxa weeye hada qof uu noo khayr qaba oday uu baa soo dafay maanta waxa weeye ما صبح استيقظت بصبح استوائي تبع سكوات ناي بايان ده هو اللي صوته باي قبل لا قبل صوته بيني كمان كده هيجي ده مش موضوع فريسة والله يعني هذا موضوع بشاري أعلى وجعلها الوطن الإنجليزي كأنه معاضف وكوها مياه وحن جعلها لندن ساعات بتاعها جست موضوع الاسكوسو صورو ما أقام برنامج أكتيف ترى مياه الويري ساعات ده أنا اسكوسو صورو هذا ما شو نسيبه يقول على تايو ويقول فقاتي دور ديروح يصير ولا شاب بشارة نعم جدا دي لهاي كان على الصلاة دمبان سارني بقى في اللقطة دون كده بتقول هو ترى دون كده لك سؤال شد وديني سنة كنا نقدر تشيل وعد بدو في أنا هاي عارف بعد هان ونكسنا هاي حمتي هذا السوق كل شراء كذا عديو ويا وفرد عقمات كي مر من إحنا ضد موارد لكن الحمد لله دينا ما شاء الله هلك تروح بدنا نعيش في مدرسة السوق الوالي عرفان تذكر وحويا بريان
دكتور تكارك يوم قبل نص ما له وين كان يسمونه هاي قدر يتناقض أصحاب هذا أحكي وحيد دعم ويجلسوا وكذا يوم الدكتور يقول نص ما تيجي بيرك waxay ahayd waa wacyigelin la'aan bas ka jirtay اليوم اللي يسوي محل قاف وقال يا dhaqan xun iska adkay waa iska xanuun waa iska maqaadir qof ku dhacdo weeye amar la qofka ugu dhaca absolutely marka imika corona halkiisa way idin qariyaan waxa sheegaan in kashiinaadu ku dhaco shiina corona waxa lagu bixinayaa bay soo qofku waa wada firaya adiga marka ma qarsatay mise waa lagu qariyay markii hore qarsaan isla laakiin markii dambe qarin kari waayay yaratay dad wixii inay hala fara ka baxday deyn shiino waan iska daaqirto waxaan ku dhadeenaa way jirtaa ee waan si fiican ahay maxaa laga dhaqaa marka horta qofka wacyigelinta kaliya ugu muhiimsan oo ahaantii dowladda ilaahay ku kala fadhiyo waa inay kuraajis ka dhigtaan صح وين نفط ما لقيت تمام يراني وين أنا بلد كثير حتى دايما كيني أكثر بدنا نسوي ويراني ما هنقول قصك ويراني نتف ودري سدباتوي كاسك قوانين marka wuxuu ga yahay nafsi kiroodo qasaska ugu horeysa wadkii suuqaas oo soo yeeyo samaha oo yaraa inta kale oo sheegista lagu sheegay qofka binaadamka la corona ku hayay taas un baan xil iyo dhibaato ugu diray sida kale mashaakil kale ma jiro qaqdaa ugu horeysa ka soo halay maxay sida kale ma sha Allah marka dadku inay qaabka waxyaabaha ku isticmaalaan sinjibiisha filfisha dagayaraha waxa dadku soo guuriyaan laakiin bishaaroy dawladda qof dhalinyaro ah tahay adduunkii waqti kaantigii baa ku jirta markaa maqasho xanuunkaasi dadkiiba ku dhacay oo waliba lagu soo sheegayo geeri badan la soo sheegayo ingiriiska waxaan maqlay waa meelaha ugu badan oo dadku ay hadda maaragtay Yurub ay ku dhimanayaan Soomaali badan baa xitaa Facebookyada aan ku arkaa marka ma dhamaystiraahdaa talow qabrigii muxuu soo saaray والله ما لقيت يقول يصير لي وش يجي وانا وحنا منين عندي مرة لا هنا يقول يعني مرة اسمع نو مركب يقول يصير في اليوم يا بوزيتيف وحنا لايك حاجات تربوية رجولية مركب لكن حاجات جد مركب عندنا ولي بقي أهل صوت صحي ودنا قصد عادي في عيلات استكاع وصلاته النادي ده بالرقمات اللي هي لا وبدا فيه دي بقى يوصل للغلط لكن والله ولا وش شيء كبير أحيانا حنون كده نوعين ما حنون كده كهان شيء كده اللي شيء Soomaalida waxa lagu xaman jiray marka qof xanuun laga helo nooc rooba ha ahaado xanuunkaasi xataa isagoo iska yar markuu cisbitaal la dhigo ama guriga joogo oo ay u yimaadaan inay dhahaan saasa ugu hayaha qad xanuunkaasi waa kii hebel dilay waa halka xanuunaysa waa meeshii heblaali u dhimatay adiga ciidaanay jabka kala kulanto walow kaana iglan oo kula joogtaa ahaatee ma aragtay ogsinaydiisha iglan waa gabadhii igu darnayda markii aan u sheegay tiri baa meesha lagu yiri oo dadka niyadda waxa ku dhacay waa qambale hadda lagu sheegay haduu dhimanayaa laakiin ugu darnayda dambe qofka hadda lagu sheegay inuu corona isla haduu dhinta soo ku dhaca sheegay waa xanuunka bidil magaciisa xaaga qambale laga ma soo marka dadkeena yaa saxin fara badan u gelinaya oo marka qofka sabab sheegay waxaan inna la weynaynaa dad badan oo ina kamid ah waxay aaminsan yihiin xanuunka qaarba si way u arkaan qaar waxay u arkaan waxay u bixiyeen baa leeyahay hargab weynaaday hargab nin weyn marka waa iska fududaysanayaan dadkii dhalinyarada ahaa khaasatan markaasi waxay u geynayaan xanuunkii dadkii waayeelka ahaa xanuunkan ama caabuqan khatar inteeda eg buu xambaarsan yahay baa isdhihi kartaa ilaa xad inteeda eg sabay tahay ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaato waa khatar fara badan waxay xambaarsan boqolkiiba 90 dadka inta la dileen mooyaan waa lagu dhimanaya iyadoo qofka binaadamka ku nool yahay neefta ku nool yahay mawta neefti marka ku nooshahay waa isna neeftu ka taagaya dadana marka horta marka ugu horeysa waxa madalaabta leh qofkan inuu soo dhigay shayga hore qofka kaaga fadhiya mashaakil ugu daran waa ka laabta qofka kaaga fadhiya inta qolay ama qof intuu karbaxayo xabka laabta dana isu hayo sida joogto loo marka kikay ليس الله كان وياه الناس كده بتحاول المشاكل كل ما بشارة الله عافماديو كل هذا ككعدي وثيعان تهي حنونك ودور كبري أهري واي حنونكيسو بشارة قف
dhalay baa tahay waa tan kaliftay inaan barnaamijka caan isnacay qofkii koowaad oo aan ku soo casumo inaan adiga noqoto muddo badan waxa weeye waxa ay ahayd tusaale ummad Soomaaliyeed oo xilli ay adkayd inuu qofka Soomaaliga ay soo caanbaxo caanimadii maanta waxaas ma maqal jirtay waa qosol ku jab caanimadii maanta waa maalin qarax maalin baa qof ku qarxaya hal qof oo share oo ku sameeya ba kugu filan ama maalin uu afka iska furato hadal xataa maaragtay aan munaasab ahayn aad tiraahdo waxa ku qarxaysa marka ina hadda caan noqdaa waa iska fududahay adiga xilligan way adkayd Facebook ma jirin YouTube warkiisa dadku ma aqoon taa jiray Twitter haba tagin maxaa ku sahlay inaad ilaa xadka qarxdo oo Allah u naxariistay cawka oo shiina xataa uu nasiib u yeelan maalin inuu soo galo Abraham jil soo daadiso wala time-ka iyo ilaahay baa sababay time-ka iyo fursaduna way isku beegatay oo wax kale ma jirin xilligu baa iska arkaa waxaan ahay telefishinka kaliya markaa ee Soomaali barnaamijyada live oo toos u soo daaya telefishinka kale inantii ugu horeysay ma ahayn runtii oo laba hablood kale way iga horeeyay barnaamijka live ma soo dayn jirin qofkii ugu horeeyay barnaamijka live ku bilaabay si toos ah u soo daaya marka waa sidoo kale telefishin si yara international Soomaali dhexdeeda ka afko kale hadii xaqiiqo loo gudaha ku ah البلد اللي كنت بلعبها من الابلكيشن دي مش طالعه يجي انا بدي اقرا الموضوع ده يمكن يعني طلب حالي ولا حالي جلاي ما كانت تسوي استقبال ثم بدنا شنو تشتغل شيء لايف oo anaka ugu horeeyay soo gali jiray fanaaniinta oo Ingiriiska ku badneedo heesaha hidka ah markasta la iska xiisay barnaamijkii ugu jiray nama wareysiga fanaaniinta oo funky ay base isaga ahayd UK ilaa waxa isla marxuumku ahaa qof aan isla weyneen oo aad u wanaagsan oo ilaa xariistii jannada ka waraabiyay qof kastoo arko saacadda ku qaadan jiray buu ahaa Soomaali isugu mid ahayd oo dadku isugu mid ahaa oo qalbi fiican oo isla weyneen oo la jeednamoodin oo haduu la jir la hadlo soo foorsada marka iska caawin kala badan jiray oo dad oo dad Soomaali isugu keenay isaga caawin jiray xagga ay sameeyay barnaamijyo marka kala qabasho kala badan marka dad runtii wanaagsan oo la kulmay sidoo xilliga ay iska sameeyay oo sida shay ahaa intaas runtii waxaan dadka sii dheeraamayahay time kun bay saacday waqti kun bay saacday bishaaro waxa ii sheegtay inaad habli ugu horeeyo Soomaalida xilliga live-ka ah oo aan maartay aan ku badnayn in TV soo faystaan ha ina ahayd waxaan hadda ka hor dhageystay xilli hore iyadoo gabar Soomaaliyeed oo fanaanada oo gabdhi ugu horeeyo fanka galay ay la kulantay faqo badan xilliga dad kula yaabo oo yiraahdo gabar ay halkaas kuma fiicna ina iska dayso bay ahayd oo maartay kala kulantay dib u riixid ma jiraan wala hawo dib u faraha badan waxa la kala kulmayay dadka iyo live ka dadka ku dooda shaqada ku soo baxda telefoonka la ku soo diray waxa munaasab ah la weydiiya ama waxa la weydiiya lagoon wax laga deeyay waqti la doonaa la weydiiya sida ay dadka baa la hadlay marka bulshada intooda xun waxyaabo fara badan oo si live ka toos marka wixii lagu weydiiyo adigina qof dhalinyarada experience badan aad awal baa kan badan yaro qofka ku soo fadhiisatay wixii waa washka horanaya moogtahay ama wada xasad marka qaar wadiya jabta habeenada qaar fara badan waxa ka fikirtay xaawal moodan doon maanta dawaan weyn adoon way dadka kale yiraahdo live wixii la doonayo la weydiiyo wax ka jawaabana ma waayo laakiin xilligaas war badan bay waxay jirtay laga fara badan ee dadka iigaysan jireen family ahaan oo kale family yes live oo maanta waliba waa si waxay qadar booliska xaafadda iyo sidoo maanta maanta marba inta gabadha ay qayb ka tahay sida wixii yara asoo yara oo kana xataa soo diyo leeyahay kala gaabsan iyada ku dheeda maanta dadka axdiyaha ka daba tiraahdo maanta la heesay kala sharaxda waalidka dadkooda may jeclayeen inaad wax dhaqan wanaagsan iyo wado adiga ka heesaysa isku mid u tihiin aadna mid la dhacsan oo sharaxaysa dadkaasna iska soo heesayso saas un bay ka anahay iyaga bishaarawi caanimada xilligaas dadku waa yaraa qofka oo Soomaalida caanka ka noqday wuxuu ahaa qof oo culus buu ahaa badanaana waxa lagu soo caanbixi jiray wax wanaagsan meelaha laga soo caanbaxana waa fududaayeen waxa ahaayeen meelo kooban bay ahaayeen maanta caanimadii waa fududahay bara bulshada jira Facebook oo afka hal maalin furato
kala qarxi kartaa samaan iyo xumaan labada kaartid waa lagu soo caabixi karaa weliba dadku waxyaabaha dhilada leh bay mararka qaarkood aad u jecel yihiin oo xumaanta aad loo sii faafiyaa marka hadda jawiga qiimaysay dadka caanka aragtay caanimada dhibaatooyinka leedahay aragtay iyo halkay marayso marna ma istiri waagi waxa ku fiicnayd inaadan malaha soo bacaan bixin gabar murwa oo hadda bishaaro qoyskaaga iyo inta qaraabadeeda ah iyo inta la deriska ku kooban iyo cidii la xidhiidho baa ku fiicnayd marna ma istiri ma ka qoomays mararka dadku waxyaabo khaldan iyo siyaabo khaldan magacaaga u isticmaalaan hawad siyaro odhanaysaa laakiin haddana adigu haddaad si dhowrsan u socoto markasta waad ka nabadgelaysaa berigaa hore caanimada waxaynu ahayn dadkii xilliyadii ugu horreeyey dadka wejigooda la barto marka laga yimaado dee fanaaniin kii waabari oo kale oo muuqaal maqal iyo muuqaal riwaayadadii soo dhawaaya wejiyadooda dadka saxaafadda loogu horreeyey stadiidiisto kale qofkooda iyo magacooda la yaqaaneen dilqawka iyo midnimada waxaa wejigooda shacabka soomaaliyeed markaas waxay ahayd xilli inuu wejigii qofka iyo magaciisa iyo codkii loo wada socda si fududoo oo hawya meel loogu wada maqlay markaasna waxaad laakiin ku kala garanaysaa farqiga ay leedahay maanta xumaanta iyo khaldaadka iyo waxyaabaha lagu soo qaanbaxaya raandis xumada qofkii sida loo caayay sida loo karaahiyeysanaya iyo qof maanta miyaadan adag weligaa 4 cisho la wadwado ummadoo dhan qabsada sanadka bacdina aan dadka laga garanaynin because raandistaan waxay sii lahayn qiimo sii weyno wax naqli laakiin xilligaasoo kale iminka qofkii mar la bartay dee waa la bartay inuu qofkii waad baratay sababtoo ah waxa lagu baranayo waa wuxuu ahaa wax qiimo leh oo aan dadka xusuustooda ka go'ayn waa joogay dhalinyarada dad fara badan baa joogay waa lagu soo bartay waxaa socday weliba ka mid ahaa inaan faafa ka mid ahaa qofna dee wejigiisii maxay ahaa sanadee maanta iyo waxa dhameeyay xawlaha sanadee weliba si ahaa lagu bartay marka ilaa waxay marka dadkii xilligaa lagu bartay yes waxay wanaagii lagu bartay ummadda sidii may ku jeclaanay ku haysaa waxa dhibaatada ay saameyno dadkan dambe daama lagu aflagadeeyay la caayo ama afshad bacdi leeyahay ma maadahay hadda anigu dadka dambaa ku jira maqaaxida muddo dheer waa ku xirnayd adoon igu fogaanay maxaa is oran kartaa waa ficlaan lahayd shiine inuu maaragtay halka ka dhimo wallahi waxaan runtii ku odhanayo maanta halka ka dhimo jirto anigu runtii aad baan ku taageeraa haddana ku taageerin ama aan ku jeclayna kaamaan ogolaadeen ee waraysiga waxa ka odhan lahaa inuu yaro qof baxaya iska gidaawa ka odhan runtii laakiin farxada ay tahay qaali ahaanshiyaha ay anigu baan ugu farxan ku yeeshay anytime baan kul hadii ma hadii ku soo fadhiya marka runtii qof iga qosbiya baan tahay weliba waxaan ku jeclaan dadka kale iyo dadka إما فرحت لي أنا جماعة شيء شيكتي هذا فلاس كهذا عاوز شيء كودي إيدي أنا فلاس تدي سني أنا فيها بوقتها مركا شيكتي قف إيدي بعد هاي قف كفتن بدل بعد قف هذا قف تكفص بيا بعد هاي قف أفتح أنا بعد هاي مرة فرق بدل بعد هذا ورقتلو مقالنا برا نبكي كلي ما قبتها أنا نشوف الثانية حكا صوبرتي مركا رنتي والله حاول بدقن كدرا أو وحياة فربضنا نفلقات أحيانا أنا هويك اللي بفوقنا أحيانا ما وحياة فربضنا بدي حتى هذا الدليل يسامع بفوق الشارع كذي وانا سكتوا كذا والله أنا كنت تقص إلهي قبلها إلهي هي سوبرتي أكشن يبقى اللي dhowr jeer waxa igu tiri waxa fiicnaan lahayd kol aad yurub soo gaar weeday ina ingiriiska noogu timaado ingiriiska hadda waa ka baxay yurub waa ka baxay waxa la yiri qofkii tagaya waa inuu fiisa u qaato meesha dad badan kama aqaani dhowr jeer waxa isiri bishaaro meesha fiisa ku soo diraysaa ku geynaysaa kolay adiguna nin culus baa tahay laba cagood uga carabayso iyana ku daba ordamaysa fiisaha ka sugaa fiisaha waa laga sugaysaa waa ballan maanta sideen u ballan qaadnay university hidro ka soo ballan qaad maanta hidro ka soo qaadan hadii ilaahay ka dhigayo labada cajalada isugu dhajin doonaa laakiin adigu surwaalkii daba gaabka ah xiran hayga soo diyaar garoon surwaalkii soo laga dheeraay soo hadde yaraado dhunay soo qariiba meesha yimaada maya haddaan muddada hadda waxa weey hadda waxa la ii sheegay dada ay tilmaamaya naxin badan ma jirtay biraha qaaqada sheegay hadda oo halka maartay waxa ay isku cadeynaysaa wala sheegaya biraha qaaqada bishaaro he ino sida la yidhi wala kaba ma naga baxdo lagu shiina qolay yeeshay marka horta labaha sadiga soo qarinaysaa diyaar weey bishaaro barnaamijka toddobaadkiiba hal mar baan qof aan isnaxay
aan ku soo cusumi doonaa 3 qof oo aad jeclaan lahayd barnaamijkan ka ku xiga inaan ku soo casumo haddii ay aqbalayaan magacyadooda ma ii sheegi kartaa fanaaniin dad caana wiilal iyo gabdho legend noocay baan noqday laba farxiifiska waxaan malaynayaa Jisweer iyo England waa heli karaya laakiin farxiifiska waramaysa waa adagtaan u malaynayaa ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed maanta maqaaxida Shiina culi ka daawanaya horta inta u guda galin barnaamij jecel yahay baa jiray oo la oran jiray Bishaaro Show oo YouTube channel-ka soo gali jiray barnaamijka waayadan ma hayno maxaa uga gaaraysa runtii walaalo mashquulku iska yara farabatay danka barnaamijyo naseexaynta dalkayga ahna waan yara bilaabay oo baaritaan fara badan iga yara baahno xogaa leh jeclada dalkayga ka qababa igu yara farabatay dabeetana waxaan jecelahay jeerka xukuumaddeeda inaan toosiyo barnaamijyadaas toosinta aan bilaabay ayaa naftirkooda mashquul ka qayb ka qaatay isna waan yara noqday laakiin Bishaaro Show oo waayaha dadka noloshooda ka waramaya insha Allah taala ونسيب ولا كان كورنا ويسوس فرامنا إن شاء الله نشوف أيضا جالسنا نقدر نتحقق أول كورنا إن شاء الله Bishaaro iyo halka dadka ku xasuustay xukuumadda ku xasuustay ma kula tahay intaanna ku balamayno inaynu Hargeysa jamhuuriyadda barakaysneed dalkeena inaynu ku balano halka ay tagno ونسيب تجينا ديار waliba magaalada Hargeysa ilaa Boorama intaan gaaray kaaga qaadana ilaa Qeyrgaabo geeyay markaas ma ba bisiida waxa way dadka xadka joogaan meelaha ugu badan joogaan ma iyo Soomaaliya ayaa ku geeyay waayahay xagga meel ka fogaa waliba tegaynaa meel oo buraan la yiraahdo baa jirta oo xaq ka saaran oo maaragtay maalin dhowto madaxweyne Muuse Bixi markii oo imtixaanada uu furayay aan ka dhageystay isagoo ilaa loo yaqado ilaa buraan baa maaragtay imtixaankii laga bilaabay waa magaalo qadiimiya oo waxa weeye aad u qiimo badan weeye marka Bishaaro waa kaaga mahadcelinayaa barnaamijka saa iga aqbashay ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed maxaa ka leedahay runtii horta meelo fara badan waxyaabo badan waa lagala socdaa horta channel-kaaga inay ku xidhnaadaan baan ka codsanayaa inta ku xidhan waan u mahadcelinayaa runtii Shiina maanta channel-kiisa ka hadlaysaa ka igama aha laakiin runtii wallahi aad baan ku taageeraa uguna xidhanahay channel-kaaga marka waan u mahadcelinayaa dhammaan bay inta ku xidhan insha Allah ummadeena waxaan leeyahay wali mar walba inuu wanaaga ka shaqeyno dad fara badan baa Shiina waxay u yaqaanaan qoraalka markii qorayaan malaha inaan malaa'igtu aanay xisaabin aanay dambi ahayn oo dambiga inta afka laga yiraahdo uu yahay qoraalka iyo komentiyada qorayna waa dambi kala درست الضغط iyo falaxmayntii kala fogaanshiyaha iyana ka shaqeyn wadaniyada ay ugu badnaato shaqada Soomaaliyeed ay ugu badnaato wax markay ku soo baxaan social media soo walba waxa soo baxay mar walba bay wanaagsan laga eego insha Allah madana Soomaaliyeed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Bishaaro Baaday oo khadka si toos ah uga jirtay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska oo ahayd qofkii ugu horeeyay ee caan isnacay oo aan ku caasimo barnaamijkayga cusub ee caan isnacay halka kala socoteen waa janaalka aan ku leeyahay YouTube iyo barteeda Facebook tan iyo inta barnaamij kala mid ah ku kulmi doono aniga iyo Bishaaro waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo